Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawow waayeel media. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharada taxana aan soo gelin doono. Casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay waa sheekada ciwaankeeda waxa la yiraahdaa honesty, daacadnimadu is the best policy, waa siyaasadda ugu wanaagsan. Honesty is the best policy. Haddii aynu sida kale u dhigno mahmaan Soomaaliyeed ayay noqonaysaa honesty is the best policy, daacadnimo hungowdo. The three selfish men, saddexdii nin ee anaaniinta ahaa. Part 1 waliba waa qaybtii koowaad. One is about time, maalmaha ka mid ah. There were waxa jiray 3 friends, saddex saaxiiba, who lived kuwaasoo ku noolaa in a small village, tuulo yar. They lived in a hard life, waxay ku noolaayeen nolol adag. They didn't have, may haysanin, anything wax to eat ay cunaan, wear ay xidhaan, and sleep on ama ay ku seexdaan. They ate nothing, waxba may cuni jirin, or ama say very little, in yar bay cuni jireen. During the day and night, inta lagu guda jiro habeen iyo maalin, they could not sleep well, si fiican umay seexan jirin, because maxaa yeelay their hearts, buulkooga yar ama aqal Soomaaligooga yari, could not protect, kamuu ilaalin jirin, cold qabowga, and rain iyo roobka, from them iyaga. Nights habeenadu are too long, waxay ahayn qaar dheer, and sleepless oo hurdo la'aan ku dhacaysay. They wore, waxay xidhan jireen, rough, dhar googo'an, and old clothes iyo dhar gaboobay. So sidaa daraaddeed their life noloshoodu was not good, may ahayn mid wanaagsan. Each morning, subax kasta, they came together, way isku iman jireen, and talked about, waxay ka hadli jireen, their problems, dhibaatooyinkooga. One day, maalmaha ka mid ah, one of them, mid ka mid ah, suggested, ayaa wuxuu soo jeediyey, an idea, wax fikrada, and said, wuxuuna yidhi, why don't we leave this small town, maxaynu uga tagi weynay tuuladan, and look for, una raadsan weynay, better life, nolol wanaagsan, in the next small town, tuulada ku xigta. Maybe, laga yaabaa, we shall be better, inaynu sidan ka wanaagsanaan doono. The other 2 men, labadii nina soo hadhay ee kale, agreed, way ku raaceen, their friend's idea, fikradda saaxiibkood, and decided, waxaanay go'aansadeen, to leave, inay tagaan, for the next neighboring small town, tuulada yar ee ku xigta, ee jaarkooga ah. The next day, maalinkii xigtay, they parted from each other, way kala tegeen, so as to be ready, si ay iskugu diyaariyaan, for travel, safar ama socdaal. End, u dhammaaday qaybtii koowaad. Continue, la soco next part, qaybta labaad ee xigta, haddii Ilaahay idhaahdo. aad baa u mahadsantahay dhegeysigaaga. u mahadsantahay daawashada iyo dhegeysiga videogan. haddii video ku cajabiyey like noo saar, dhiirigelin bay noo tahay.